waxaanu kula kulannay mid ka mid a saldhigyada jabhadda aara oo ku yaala gudaha gobolka awdal genaraal maxamed nuur oo isagu qaabilsan howlgallada dhinaca aara waxaana uu maanta halkan ku soo bandhigaya oo miidiyaha ugu soo bandhigaya qaar ka mida ciidamada u dhashay gobolka awdal oo ka soo goostay ciidankii ay hore u ahaayeen ee maamul ku-sheega Hargeysa waxaana uu hadalkiisii ku bilaabayaa genaraal maxamed nuur sidatan بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد anigu waxaan ahay maxamed nuur faarax oo ah howlgaliyaha ciidanka aara ee xoreynta gobolka awdal aniga oo soo bandhigaya ciidamada ka soo goostay ciidankii SNM ee horey dee Hargeysa u joog saddexda nin ee nooga horeysay waxay ka soo baxeen saldhiga koobaad ee Geerisa ururka Bura maantana saldhiga aan joogay waxa weeye meesha la yiraahdo Labadulli meesha la yiraahdo baan joogaa oo ka tirsan gobolka awdal barihiisa una dhow degmada Abuura sida aawadeed waa in dadku waa indha ku garaadle waa kuwa iga dambeeya nin kastaaba isaga sheegi doona ururka ururka ka tirsanaa guutadu ka tirsanaa magaciisa iyaga sheegi doona u dambayn maanta oo joogno oo sabti ay tahay badbaan u yimiday nala jooga ka yimiday iyaga sheegi doona halkay ka yimaadeen sida aawadeed waxaan leeyahay ciidamada u dhashay gobolka awdal horeyba waan ugu baaqnay ballan baan u qaadnay wixii dhiig leh aanan dooni raacahayn ee dhalada ee u dhashay gobolka awdal ee aw ku shaqaysanayeen ninka la yiraahdo Siraanyi waa in ay ka soo baxaan dhammaantood xoreeyaan gobolkooda ka xoreeyaan ciidanka fashiistiga ee Soomaalidiidka waa in ay ka soo baxaan dhammaantood assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga magacaygu Yaxya Cilmi Xuseen Aare oo ka tirsanaa guud in dawladda waxa dawladda ku sheega ee SRM magacayguna yahay Yaxya Cilmi Xuseen Aare waxaan ka tirsanaa guutada la yiraahdo qaybdiid waxaan ka soo baxay Korea Cawl gaar ahaan ururka saddexaad yaan ka soo baxay wixii walaalahay ku dambeeyana waxaan ugu baaqayaa inay soo baxaan nolol taa iyo tan dhex taalina inay farq weyn u dhaxeeyo inayna waxa weeyaan doona raac noqon oo waxa weeyaan walaalo soo raaca naftooda iyo dhiigooga dalkooga horaan dal ana waxba ku lahayn maal iyo mooraan waxba ku lahayn baan u dhibanayn oo dhiigayaga u hurayn waxa la naga dhaadhiciyana way hay oo kiraalan maanta ilaahay na garasiiyay oo waxa weeyaan rajadii ugu weynaadaya ana ka soo baxay dibna lagama yaabo inaan ugu laamo hadii waxa weeyaan wax kasta baad ay dhacaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جوا حسين ريالة ولاد أو وده شيء ذلك أوضل إمي كان أها كتر سنة دولة سكوشيكا سومالي لان بعيدنا ها موريتريا وجوجي سومالي ديدكا وجوجي بري قبل خلاص عنود guutada 140aad qaybta 11aad marka waxaan u soo halgamay oo uga soo baxay wadankayaga oo ahaa gobolka awdal waxa aan u rajaynayaa ciidanka wixii iga dambeeya ee joogay imika lagu shaqaysanayo
nolol dhaantaa loo hayaa gumaysi bay qabaan taa aan anagu ka imanay inay wadankooda u halgamaan oo u soo baxaan iyaan u bandhigaynaa sidaa iyo assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh bismillaahi rahmaani rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin anuu magacaygu yahay Awale Xuseen Cismaan kala mida maanta halkan joogo waxaan ka soo goostay dawladda isku sheega SNL anoo dawladda ka soo goostay kana tirsanaa guutada dawladda lagu sheego qaybdii urugay kooban waxaan uga soo qoday qadiyad iyo uga soo goostay bismillahir rahmaanir rahiim anigu magacaygu yahay Ibrahim Jaamac Karim kana tirsanaa booliska militariga sida booliska dableyda ururka kooban ee Hargeysa wax badan ma ku soo tirsanaa guutada aad u badan ma ku soo tirsanaa ilaa 20 iyo 1 sano soo joogay ku bilaabta ka sanad ee wixii aan ku joogay wax qanciyo horta ma ani qanciyo ma tii way ka soo waaday waxa dhacday in maradaad xirantay lagu yimaado yani lagu dhaho tan ka kac ya adiga carruurtaad meelad ku noolaata lagu diido saysan kari waayo warkaas saas ku soo baxay anoo waxaan Cabdi Xasan Sheer ka tirsanaa Koreaan waxaan ka soo baxay gumaysiga dalkayaga haysta marka sidaa darteed inaan dalkayaga xoreyno ayaan u soo baxay oo walaalaha naga dambeeyeen waxaan leenahay inay si degdeg ah uga soo baxaan oo wadankooda u dhintaan assalaamu calaykum warahmatullahi bismillahir rahmaanir rahiim aniga la yiraahdo magacayga Maxamed Umar Barre halka aan maanta ku suganay waxa weeye jabhadda xaquuqdarirka ee Suldaan Cilmi Wabar Suldaan Abubakar Cilmi Wabar hogaamiyaha ka yahay waxaan halkani aan uga baaqayaa waxaan ka tirsanaa guutada gurmadka ee 3 ee taale jiita bariga marka waxaan halkan walaalahay baaq uga dirayaa inay nagu soo biiraan oo inoo yimaadaan waayo waxa weeye tii muhiimkii waxa maanta ku dhimanayaan bari bay ku dhimanayaan dal kale u dhimanayaan waxaan ka jecelahay walaalahay baaq ugu dirayaa inay maanta igula dhintaan tan carradooda assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh bismillahir rahmaanir rahiim aniga oo magacayga la yiraahdo Axmed Muuse Isaaq kana tirsanaa Soomaaliyeedka SLM gaar ahaan magaalada Boorama kana soo goostay oo hadda ku sugan jabhadda Suldaan Wabar ee Aare sababahan uga soo goostayna ay ahaayeen mid qadiyadeed oo ay madaragtay awdigeegu adkeysan waayay awrkilaaranimada iyo dan wadaagii dadkan dugaaga ah ee Soomaaliyeedka ay moodeen salaadiintayada iyo aqoon-yahankayaga iyo siyaasiyiinteedu dad wax lala wadaagi karo damiirkayaguna hadda u adkeysan waayay in aan dan wadaagii aan la sii wadano oo ay noqotay mid bini'aadanimada ka baxsan imika haatanna waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada iyo ciidamada iga dambeeya ee u dhashay gobolka Awdal iyo Salal iyo Gabil in ay iskaga soo baxaan awrkiraalanimada jabhadda SLM ee Soomaaliyeedka iyaga oo maanta qadiyada goboladooda iyo danahooga iyo dadkooga iyo dalkooda dhiiga u huray ana noqonayna kuwa awrkiraala noqonaya kuwa mustaqbal iyo rajo hiigsan doona soona raacaan ilayska iyo iftiinka oo hogaaminayo Suldaan Abubakar Cilmi Wabar assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh bismillahir rahmaanir rahiim oo ka tirsanaa guutada lixaad oo uga soo baxay cadiyada waxaan codsanayaa inaan ku iga dambeeyayna si degdeg uga soo saaro imikana aan ku tirsanahay guutada Wabar assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh hadii aan ugu cabdi shukur Saciid Xasan ka tirsan saldhigga koobaad guutada 9 madaxdalay waxaan uga soo baxay
halgankan awada Suldaan Wabar jabhadda Aare waxaan uga soo baxay waxaan ugu baaqayaa ciidamadii naga dambeeyay ee naga dambeeyay jiidiyaha ka nimidnay ee la iskaga dhigay xabadda jabhadda Wabar فايسك حكسو بحمل له ولا له هو soo huraan waxa la kala qayb qaataan baan leh wasalaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ana magacayga waxa la yiraahdaa Xuseen Marka Kaaye waxaan ka tirsanaa soo baxay waxaan soo baaqayaa inay walaalahay oo ila mid aha oo dhiigooga bari ku dhibanayay Soomaaliyeed jabhadan أسلم سومالي جيدة هنا إسكاس ولا بحان سيدا أنا قصو بحنا ويدل كوجا يدل كوجا بالدفاع عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عليك مقعيق يهي محمود بدد بد كان عيمد باري إذا مقع الله وشيكو أساء هاي وحيدنا كانت ترسانات وتذا اللحات لقنا مامورو ماشا كريتاليسكا هرقيسة waxaan walaalahayga iga dambeeya ka codsanaya inay si qurux badan walaalahooda ugu yimaadeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magacaygu yahay cilmi yaasiin jaamac oo ka tirsanaa ciidamada isku sheegaya Somaliland ee magaca Aslam ee Siiraayo hogaamiyo oo kana tirsanaa guutada qaybdiid gobolka labaad ee yaala Hargeysa waxaan halkan kaga hadlayaa ninka Ismaaciil Shaqale la yiraahdo markaste kolka uu guutooyinka u yimaado yiraahda ciidankii Somaliland ka goostay u tagay Suldaan Wabar sida dhaqsaha badan hoos oo galaan oo la hadla markaste yiraahda waxaan ugu baaqayaa haddii waxa weeyeen isagu aslam tiran yahay annaguna tan jarana ka noqon kartaa waxaan walaalaha iga dambeeyo ku dhiirigelinayaa sida ugu degdegsan inay iskaga soo baxaan taasina ayna dan ugu jirin meesha waxa yaalana qabyaalad iyo qarmoon walaalaha waxa weeyeen dib u sii eegayana war dalkiina iyo dadkiina dhiiga u hura ayaan leeyahay dawladayna dan ugu jirin ha ku dhimanina wax dawlad lagu sheegana ma aha laba reer oo heshiiyaan hayn marka horeba imkana waxa weeyeen waxaan nahay dawladooda imkana waynu iskaga soo baxnay dadkiina iyo dalkiinaba dhinac u raacan leenaho dhiirigelin keena marka waxa weeyeen Ismaaciil Shaqale waxa sheegaysaa imaashaan imaadee inaan adiga ku soo aftooba ayaan diyaar u ah habeen dhaweydna wanaga gaari ka soo qaban subax dhaweyd todobadii subaxnimo waxaas ciidamadu wada taageen anagoo saddex nin oo kaliya ayaan gaari ka soo aftay gaarigii maaliyadda imankana waxaan halka ka hadlayaa isaga inaan halka uu joogo u tagay isaga iyo Siiraayaba aan Hargeysa ka bilaabo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay generaal maxamed nuur faahiye aan idhaahdee generaal maxamed nuur faarax waxaan ku weydiinayaa inta badan kolley dhinaca markaa la sheegayo dadka ku idin imanaya dhinacan jabhadda Aara ee Suldaan Wabar waxa lagu sheegaa in ay reer yihiin marka ciidankani ma isku reerba mise waxay ka soo kala jeedaan beelaha Gadabursi dhamaantood bismillaahi raxmaani raxiim horta haldii danigeeda ku qotama weydan wax caasiyaana kulli waa leeysi soo iyagu way yiraahdeen qolaa joogta meesha dadka caasiga ee u kiraysan odayga la yiraahdo Siiraayo iyo ururka Soomaaliyeed ka cid u kiraysan way tiraahdaa qolaab joogta meesha ma aha qolo cid kasta oo Gadabursi way ku jirtaa inta ay ka noo muuqatina waa saldhigii koobaad bay timiday saldhigyadii kale ee saddexaad labaad afraad lahaana way hadhiin waana idin tusi doonaa intan ma aha way ka badan yihiin sidaasaan ku leeyahay waa Cali Ismaaciil Aara oo ku sugan hadda waqooyiga gobolka Awdal